dhammaanba agagaarka webigan waa jasiirada ay ka buuxaan kumanaan ka mid ah yaxaasyada ugu khatarsan adduunka. Everyone ready? Ready? All right, I'm going to jump. Go. All right, come on. Let's go. Yeah. Okay, run. Oh, yeah. sidoo kalena yaxaaskan aynu u jeednaa waa mid ka mid ah yaxaasyada ugu waaweyn ee biyahan ku dhex nool. hal mar haddii uu ku qabsadana ama lug buu kaa goosanaya ama waad dhimanaysaaba. Okay, run. Keep running. Just keep an eye out for the crocodiles. haddaba 7 cishay soo socota saaxiibayaal waxaan isku day doonaa inaynu gaadhno bartamaha jasiiradan. yaxaasyadan meel walba ay joogaan waa qaar aad agressive ah oo inay kusoo weerarayaan. biyaha dhexdooda waxay ka soo boodi karaan 2 mitir, sidoo kalena waxay carari karaan 40 kilomitir saacadii. 40 kilometers an hour. What? Yep. haddaba kani waa Charlie, waa nin khabiir ku ah sida loogu badbaado jasiiradahan oo kale. waana ninka ay la socon doono intaan jasiiradan joogno. waxaanu inaga caawin doonaa sida aynu gaadhi lahayn bartanka jasiiradan. yaxaasyadan xataa haddii aanad arkayn meel walba u joogaan oo way ku dhow yihiin. markan waxaan soo gaadhnay oo uuna keenay ninkani webigan ay yaxaasyadu ka buuxaan. halkan waxaan ku arkaynaa imika 10 yaxaas, sidoo kalena qaar kaloo fara badani waxay joogaan dhammaadka jasiiradda. halkan baynu joognaa, waxaynu geli doonaa kaynta. kayntan waa mid ka mid ah kaymaha ugu khatarsan adduunka oo dhan. kayntan gudaheeda intaynu ku jirno haddaba yaxaasi oo keliya iskama ilaalinayno, waxaa ka buuxa waxyaabo kaloo fara badan oo khatara. kayntan waxay leedahay dhir badan oo suna, sidoo kale masaska halista ah ee sunta lahaana way joogaan. caarooyinkii sunta lahaa laftirkooda waa laga helayaa. sidoo kale intaynu muuqaalkan ku guda jirnana waxaynu arki doonaa wax ka khatarsan dhammaanba waxa aynu soo sheegnay. aad baanan u nasiib badnaynba haddii aanu ka soo baxnay meeshaas annagoo nool. saaxiibayaal haddaba waxaad isweydiin kartaan sababta aanu meeshan khatartaa u tagnay. wax kale ma ahaye laakiin waa inaanu soo aragno xayawaankan taybirka lagu magacaabo. xayawaankan waa mid ka mid ah xayawaanada dhif iyo naadirka ee millions of years ku soo noolaa halkan, laakiin iminka sii dabargo'aya. sanadadii ugu dambeeyey tirada xayawaankan halkan ku nooli aad ayay hoos ugu dhacday. dad badanna waxay ku sheegaan sababta inay tahay yaxaasyadan, laakiin khabiiradu waxay aaminsan yihiin inay wax kale yihiin. haddaba saaxiibayaal halkan waxaan u joognaa sidii aan u soo arki lahayn taybirada ku sii hadhay halkan, inaguna soo baari doona sababta ay u sii dabargo'ayaan. haddaba markan saaxiibayaal si aynu u gaadhno bartanka jasiiradan oo ah deegaanka xayawaanka aan soo sheegnay taybirka, waxaanu ku qasbannahay inaanu sii dhex lugayno mid ka mid a kaymaha iyo sidoo kale dhulka ugu khatarta badan leh adduunka. And this is a crocodile, not a caiman. This is a crocodile. Out here. halkan markaad maraysaa haddaba wax walba waa khatar adiga kugu soo wajahan. Poison ivy. So that's poison ivy as well there, is it? Yep. It's all poison ivy. Sick. The vine. But isn't... yaxaasyadii iminka kama warwarsaniba waxay kaga daran geedahan sunta leh, shabeellada meesha lagu sheegayo waxaasaan ka warwarsanahay. balse saaxiibayaal maadaama kumanaan yaxaasi ay jasiiradan ku nool yihiin mar walba waa khatar nagu soo wajahan. Oh, there's one. Oh, it's hiding. He hides. sida halkan aynu ka arkayna yaxaas weyn ayaa ku jira. dabcan maadaama biyo inoo dhow yihiin marnaba sayf ma nihin, waa yaxaasku beedadkiisa waxa uu dhigtaa cawskan u dhow biyaha. Oh God. mid ka mid ah yaxaasyadani waa hooyo, sidaa darteed haddii aynu u dhowaanno way nagu soo carari doontaa. sidaan hore idinku sheegayna sida ayga ayay u carari karaan oo aad bay u dheereeyaan. muuqaalkan maanta haddaba waxaan soo kaxaystay saaxiibaday, sidaa darteed keliya aniga maaha qofka khatarta ku jira. tallaabo kastoo aan qaado way la qaadi doonaan, khatar walbana way la wajihi doonaan. Oh my God. Crocodiles literally coming right for us. Stay down. Charlie markan wuxuu noo sheegay inaan hoos u fadhiisano oonu isqarino. yaxaasyadu waxay soo dhex marayaan biyaha, haddii harkaaga ay arkaana sidaas ayay kugu dhammaatay. Scared. They go away a little bit and we can keep moving beside the river. I think there's another croc coming. Where? saaxiibayaal taasi waa khatartii ugu horreysay aan wajahnay, laakiin sidoo kale waa inaanu xasuusanaanaa in waxa keliya ee khatarta ah halkan aanay ahayn yaxaasyada oo qura. Look at that. And very likely he's some kind of poisonous one. Did he bite you? No. He went quick though. He jumped right onto it. Oh my God, why did I poke him? Okay. Don't poke the spiders, guys. Yeah. They jump. So quick. Especially when we don't even know where the freak our guide is. Charlie si degdeg ayuu u socdaa waanu naga dheeriyey markan. We were struggling to keep up. Where's Charlie? Where is Charlie? Love that he's left us in jaguar territory. Charlie's gone. He's there. haddaba maalin dhan markaanu meeshan dhex marinay ugu dambeyn waanu daalnay.
You getting tired, boy? Has been a while since we've eaten. markanina waa markii aanu helnay raadkii ugu horreeyey ee bahalkan meeshuu nimid ee taybarka lagu magacaabayey sida jaaril noo sheegay bahalkan bekeriga lagu magacaabo oo isaguna ah nooc doofaarka ka mid a ayaa halkan ku nool kaasoo haddaanu raadkiisa raacno aanu helayno deegaanka uu ku nool yahay xayawaankan meeshuu nimid doofaarkan laftigiisuna waa khatar sida uu jaaril nala wadaagay raadkii doofaarka markaan soo raacnay waxa uu nala soo galay webigan So, and we're not worried about crocodiles in this river? Are we? Are we? Well, Charlie never said a single thing. gobolkuna maadaamuu dhacay oo habeen noqotay webigan aanu ku dhex jirno khatartii ugu weyneyd ba iminkaan ku sugannahay maadaama yaxaasku habeenkiina wax u gaadhsado Freshwater shrimp. Yeah, I guess I didn't realize there were shrimps in the river. It's kind of weird, I huh? didn't know that was a thing, to be honest. Yeah. I could really go for some seafood right now. Just so you know, Yeah. your boots filling with water is an inevitability. Oh, okay. It's inevitable? dhulku maadaama uu madow noqday sidoo kale raadkii aanu raacinayna way adkaatay inaanu dabagalno raacno Can't see a crab. This place is so opposite of what you would think it would be. There's crabs on the land and shrimps in the river. What is no. that? Oh, What's no. happening? Epilepsy! xalay raadkii markaanu weynay saaka markaanu soo toosnay ayaanu mar labaad dib u qaadnay maadaama iftiin noqotay Whoa. So this is peccary tracks? Peccary tracks, yeah. Wow. saaxiibyaalkani waa raad kale oo doofaarkii ah weli taybarkii maaha laakiin waa doofaarkii haddaba raadkani maadaama waa raad cusub waa inaynu deg deg u soconnaa si aanu nooga labdhin xayawaankan aanu daba soconnaa laakiin mar kastoon hore usii soconno waa mar kastoo khatarta kayntu ay sii badanaysay Snake skin. intaynu muuqaalkan ku guda jirno dabcan waxaynu arki doonaa masas aad u tiro badan kani masmaha waa xuubkiisii maskan aad uma weynaa laakiin masaska noocan maadaamaan aad loo arkin aad buu khatar u yahay markan haddaba raadkii waxa uu nala soo galay uu dib noogu soo celiyey webigii halkan waa halka yaxaas ku dhigta beedkiisa webigan kuma dabaalan karno laakiin meel u dhow ayaan ka tallaabaynaa So you're into crocodile territory again. Great. The most important thing here, stay away of the... Don't go there into the water. See? Yeah, see? See, I saw something jumping there. Can be the crocodile. Also can be other. Okay. The others also do that. So we're possibly looking at a crocodile or what? An otter. Oh, so it's either a crocodile or an otter. balse haddaba mar keliya hortayda waxaanu ka aragnay yaxaaskan kala weyn sidaad aragtaan iminka waxaynu la kulannay yaxaaskii ugu weynaa ayaan arka baanu intaan noolaa dabcan yaxaasyo badan maan arag laakiin kan baa ugu weynaa waxaan arkay Thing is massive. Look at this guy. Oh my god. This crocodile doesn't look that friendly. Oh my god, he is a humongous. yaxaaskanaad sidan ugu dhawaata aad bay halis u tahay waxaan malaynayaa inay noo wanaagsantahay inaan meesha iskaga tagna intaanu xanaaqin wax yaroo kale markaanu sii socno charlie ayaa mar labaadna istaajiyey socod baan maqlaya ma maqlaysaan I hear something. I hear lots of things. laakiin mar keliya markan waxay noqotay mar ka duwan Whoa. Paper right here. See how big they are? charlie markan waxa uu helay raadkii ugu horreeyey xayawaankii aanu raadinaya taybarka See right there? Is this a fresh trap? Yeah. Or is this like a day old or something? No, actually it's fresh. tanina waa caddayntii ugu horreysay aanu helnay ilaa imika saaxiib yaal bal u fiirsada tani waa gacantayda raadkiisuna intuu leegahay wad aragta aad buu uga wen yahay It's a lot bigger. These are its little toes. I mean, huge toes. taybarkani waa xayawaanada ugu waaweyn ee kaymahan ku jira miyuu ka wen yahay dadka iyo shabeelka haa way ka wen yihiin haddaba kani waa inta uu leeyahay ama sayska ayga kanina waa sayskayga halka kanina uu yahay sayska xayawaankan taybarka ama inta uu weynida leeyahay aad bay wen yihiin runtii miisaankiisu ilaa 350 kilogram ayuu gaadhaa ama 700 pound miisaankani waa miisaankayga oo 4 jeer la labanlaabay markan haddaba maadaamaan ogaanay halka uu socdo taybarku waxaan awoodnay inaanu dabagalno raadka markaan raacnayna waxa uu si toosa noo geeyey meesha xayawaankan uu ku maydho Oh wow. Hell yeah. Woo. Nice. That's sick. So we can swim here. This is where the boys get naked, huh? Wow, look at this. Woo.
we are all incredibly sweaty and dirty, and it's just insanely humid. So, boys, let's get into this water and have a nice time. laakiin mar kaliya Charlie wuxuu bilaabay inuu si yara warwaro maadaama roob da'ayay Charlie wuxuu noo sheegay in roobkan uu daadad fara badan keeni karo sidaa darteed ay khatar tahay. Okay. Coming down, so this is very dangerous. It does look quite gray and cloudy up there. Yeah, I can never tell if he's being serious or not. Yeah. But you're actually a bit worried here, yeah? A little bit worried? Yeah, that's true. laakiin waxaan u malaynayba inuu naga cabsiinayo hadalkiisana manaanu dhegaysan. Yeah! Look at that! Woo! All right, get your clothes off, boys. Don't look at me, I'm shy. laakiin maanu ogeyn in Charlie uu sax ahaa sababtuu warwarayay. kadib markii biyihii aan ku hoos marmeedhanaynay ay bilaabeen inay soo bataan. At this point, the water biyahani markiiba waxay bilaabeen inay aad u soo qulqulaan laakiin mid kaliya oo naga mid xataa marnaba muu dareemin. Right, we gotta go. We gotta go. Okay. Jesus. It has started raining, so we need to get out of here. It's time to go. roobkan badani haddaba ay soo da'ay waxa uu masaxay raadkii aan raacaynay ee taybarka sidaa darteed haddii aan raadkaas sidaa ku weynay mar labaad waxaan ku qasbannahay inaanu soo soconno oon raadkii dib uga soo raacno kaymaa dhexdooda halkaas oo ah halka ugu khatarta badan leh. Over there on that rock. Seriously? dhagaxa eega dhagaxa u fiirsada waa dhagax weyn oo masdul saaran yihi. Snake on it. Oh, oh my God, you're right. Here we go. Here we go. Okay. What is that? kan waa maska nooca loo yaqaano Ferdinand waana mas aad iyo aad u sun badan masaskan waa masas aad u khatar badan oo weliba aggressive ah. All right, just get out of the water because he's dangerous. These are highly aggressive and incredibly venomous. 2 ilaa 3 saacadood baad haysataa haddii uu maskani ku qaniino haddii dawadii sunta lagugu mudi waayo waad dhimanaysaa. kaymaha khatartan taallaa way ka badan tahay tii aan ka cabsanay xasiyada. Okay, he's moving. He's coiling. He's coiling. I don't really want to keep going. You know what you signed up for. Well, I signed up for crocodiles, not snakes. Good point. But there's much more in this jungle than crocodiles. tani waa nooca caarada tarantula la yidhaahdo dhinac walba ka mid a kayntana waa laga helayaa. It's tarantula. It's a tarantula. Dangerous? Yeah, it's very. Okay. That is my first tarantula I've ever seen in real life, just in the wild. And the ground was littered with hundreds of them. There are spiders everywhere, dude. They're everywhere. The water spider there, tarantula there, another tarantula here. You've seen two tarantulas. They are all over the place and they're creepy. They are literally everywhere. kayntani maadaama habeenkan haddaba ay khatar ahayd laakiin waxaanu ku qasbanayn inaanu sii soconno oonu sii raadinno xayawaanadii aan raadinay ee taybarka ahaa si aan u soo fahanno amaba aan u soo ogaanno sababta ay u sii dabargo'ayaan balse sidaasay tahay kama warhayno inta ay leeg tahay khatarta nagaga horraysa kaymahan caawa. About to be. Very big. Sorry. These are not dangerous to humans, but they're still absolutely terrible. Oh my God. saaxiib yaal tani waa khatar laakiin ugu yaraan ixaasiyada imika uma dhowin laakiin laga yaabaaba inay ixaasiyada tani ka khatar badan tahay waayo xayawaanadan yarre caarooyinkan iyo waxaan maba arkaysid iyaga ixaaska waad iska eegi kartaaba. kani waa raha poison dart la yidhaahdo waana mid wada suna aad buu uga yaryahay intii aan filayay inuu leeyahay laakiin sun fara badan ayaa rahan imika ku dhex jirta kanna baleeg waa rah kale oo isaguna sumaysan. No, these guys are really dangerous. Look at that. That fella's clearly poisonous, right? We probably have another poisonous frog. Whoa, okay, there goes the frog. Oh, whoa, look at that, look at that, look at that. Damn. It's a bigger Ferdinand, so I was just sitting there. habeenkaas sidaas ayaan ku qaadanay subaxii dambe waxaanu diyaar u ahayn maalinta cusub si aan u soo raadinno wixii aan u soconay. okay imka biyaan helnayba It should be a theme. You should just try whatever Charlie tells you. haa biyahani waa caad waad isticmaali kartaa laakiin waxaan rajaynayaa in wax bakteeriyaani biyahan ku dhex jirin. haa dabcan mar baan xasuustaa aan si raaliyoon ku sugnayn biyahan oo kale aan cabnay laakiin saaxiibkay wuu dhintayba maadaama kallayro ka qaaday laakiin biyahani iminka sii fiihin baan filayaa ma adigu kaftamaysaa.
Are you Okay. Okay. Cholera. haddaba intaynaan sii socon Charlie wuxuu inoo sheegay oon weydiinay sababta yaxaasidu ay cuni waayeen taybiriska meesha jooga isagoona nala wadaagay in yaxaasidu aanay cunin taybiriska maadaama yihiin xayawaanada ugu waaweyn ee meesha joogaba taybirka dhalahooda ama markay yaryar yihiin yaxaasku uu cuni karaa sidaa darteed webiga uma dhowaadaan badanka haddaba yaxaasida taybiradan haddii iyagoo aanay cunayn oo dad badanna ay aaminsan yihiin in yaxaasiyadu ay dabargooyeen xayawaankan balse sida iminka Charlie noo sheegay yaxaasiyadaasi maaha khatarta ay meesha uga sii baxayaan xayawaanadani ee wax kale ayaa jira sida uu Charlie noo sheegayna sababtaa kale waynu arki doonaa oo wayna tusi doonaa haddaba ninkan Charlie lagu magacaabaa intaanu safarkan ku guda jirnay waxyaabo fara badan ayuu naga qarinayay annagoo isla maantaba halkan ka ogaanay in kaymahan ay wax badan u qarsoon yihiin Yes, we're coming up on a horse. kadib markii uu Charlie si toosan noo geeyeyba meesha uu ku yaalla aqalkan kaytan bartankeeda ka dhisan Hot. What is this? I don't know. What's it being done? iyadoo markanina ay noqotay markii aan ogaanay siro badan oo kale oo u qarsoon kayntan sidaba gurigan kayntan ugu dhex yaallaa dabcan waa haddii aanu ahayn guri ay leeyihiin niman daroogada ka ganacsada kaynta ku dhex qarinaya waa runtaada waa sidaad sheegtay darogaystayaal baa le gurigan safena ma nihin iminka waan iska hadlayaa waan kula kaftamayaa gurigan waxaa lagu magacaabaa ranger station ama waa xarunta rangerka wax loo yaqaano A real rangers. And what is a ranger? haddaba saaxiibyaalkani waa ranger station waxa lagu magacaabo adiga laftarkaaguna waad yaaban tahay baa laga yaabaa waxa ay la micno tahay ranger stationka ama xarunta rangerku haddaba rangerku saaxiibyaal waxa weeye niman kaymahan loogu talagalay inay ku noolaadaan oo dowladdu ay shaqaalaysiisay si ay kaymaha u ilaaliyaan haddaba saaxiib haddaanan qaldanayn ma waxaad igu leedahay kaymahan waxaa jooga booliis amaba rag askara kuwaasoo loogu talagalay inay ku dhex noolaadaan meeshan ay ilaaliyaan oo weliba ku dhex nool guryahan kaynta ka dhex dhisan haa waxay ku nool yihiin meelo kala duwan oo kaynta ah guryahooduna ay uga dhisan yihiin meel walbana waxaa ku taalla xarun ranger dhammaanba xadka kaynta way ku wareegsan yihiin shaqadooduna waxay tahay inay hubiyaan oo ilaaliyaan in wax sharci darra aanay kaymahan soo dhex gelin nimankani haddaba hub ayay wataan umanay baran dad soo booqda oo kayntan ku soo booqda markan biyeeyo waxaynu baahanay cunto ma nimanka rangerskaad biyo noo weydiin doontaa Charlie haa dabcan iyagan weydiinaynaa raggan hore maad ula hadashay mayu weli hore ulamaan hadal Right, now you're kind of trespassing into their territory as well. Oh my God, they have a lawn. That's kind of cool. They've got grass. Why am I so nervous? Cool. Charlie, you want to say hello? Hola. Here we go. Buenas. Hola. haddaba markan waa marka aan ogaan doono sirtii uu naga qarinayay Charlie waxaanu noo keenay nimankan rangerska ah si aanu sirtaas u ogaano Charlie isagu hore ayuu sii ogaa sababta dhabta ah ee ay u sii dabargo'ayeen xayawaanada taybirisku annaguna imika ayaan ogaan doonaa halkan ayaanuna keenay si aan u ogaano annaguna oo ay noogu sheegaan nimanka rangersku halkanna sidoo kale waxaanu ku weydiinay rangerska waxyaabaha ay qabtaan Sí. Okay, the camera off because it's illegal. Quieres saber qué hace un guardaparques. ¿Qué hacemos? He walked into the national park patrolling. haddaba saaxiibayaal jasiiradani waa jasiirad la ilaaliyo taasoo ku taalla dalka Costa Rica maadaama jasiiradan ay joogaan xayawaano fara badan oo sii dabargo'aya raggan halkan waxay u soo qaataan qalabkooda iyo hubkooda waa haddii ay u baahdaan inay hubkan adeegsadaan markay kaynta joogaan saaxiibayaal markaad leedihiin dadka sharci darrada maxaad uga jeedaan maxay meesha ka qabanayaan dadka sharci darradahay dabcan waxaa ka mid a dadka ugaadhsatada ah ee ku sugan agagaarkan sidoo kale waxaa ka mid a drug dealerska ragga loo yaqaano ee daroogada ka ganacsada iyaga laftarkoodu halkan way soo geli karaan kaymahan meeshan waxaa ka buuxa ugaadhsato badan oo sharci darra iyo sidoo kale niman daroogada ka ganacsada mararka qaarna waxaa dhacdaba haddii wejigooda aad aragto inay halkaa kugu dilayaan balse haddaba maxay sidoo kale ku samaynayaan xayawaanka taybirka loo yaqaano bal ka waran taybiriska maxay ku sameeyaan nimankan wax ugaadhsada dabcan taybirku ma aha xayawaan hilibkiisu macaan yahay hilibkiisa uma ugaadhsadaan laakiin waxay sameeyaan madaxyada xayawaankan ayay urursadaan maadaamuu yahay xayawaan naadira iyagoona ku dhex iibinaya suuqa madow marka waxaad igu leedahay taybiriska waxay u laynayaan si madaxyadooda ay u qaataan marka kaynta dhexdeeda waxaad ka heli kartaa taybir madaxa laga goostay miyaa haa mararka qaar waad ku arki kartaa
haddaba sidaynu soo aragnay taybariskan waxaa gumaaday bini aadan sidaa darteed si aynu u gaadhno meesha xayawaankan taybarku uu degan yahay ama uu joogo waxaynu u baahannahay inaynu sii dhex marno nimanka ugaarsatada ah haddaba markan ma wajahayno keliya khatartii xaasiyada ama khatartii masaska sidoo kalena kaymaha waxaa jooga dad ugaarsata ah kuwaasoo hub wata wakhtiguna intii aynu filayna uu inagaga yaryahay markan si aynu u soo helno taybarada hadhay ee sii dabargo'aya isla markiibana dhibaato ayaanu la kulannayba Be also in places where the hunters like to be. You get in trouble with something, we have no way to communicate with the rangers. qalabka kaliya aan kula xidhiidhinay nimanka rangersku waxa uu ahaa gacanka lagu wada hadlo Charlena sida imika noo sheegayo gacankan wuxuu kaga yimid meeshii sidaa darteed haddii ay wax nagu dhacaan qaab aan kula soo xidhiidhno ma helayna nimankan So now we have no communication. So if something happened, we have to do it by ourselves. So you had a walkie-talkie? Yep. And I forgot. But I have it in my hand. I don't know what I did. inkastoo dhibaatadaasina qabsatay haddana hore ayaanu sii soconay kaynta ayaan kusii soconay laakiin Charlie markiiba wuxuu bilaabay inuu wax dhegaysto waxaana u muuqatay inuu wax arkay markan So this is from the tapirs. Tapirs clean them out. They clean them out on the trees. Okay. Wait, how the f*** is it that high? geedahan aad u jeedaan taybariska ayaa calaashta si afkooda ay ugu nadiifiyaan sidaa darteedna tani waxay la micno tahay inaynu si rasmiya u dhex joogno meeshii ay deganaayeen taybarisku So we could be close. It's cool. isla markiiba markaan wax yar sii soconayna waxaanu la kulannayba oonu soo gaadhnay meesha ay daaqaan taybarisku sida uu Charlie noo sheegay kani waa cawska ay daaqdo taybarku waxaan imika joognaa meel ay cawskan iyo dhirtani ka buuxaan haddaba daroontayada ayaanu adeegsanay waxaanaanu ka aragnay halka sare in cawskan dhexdiisa ay wax ka dhaqdhaqaaqayaan haa halkani waa meesha ay daaqaan xataa waad ka arki kartaa cawskan inay cuneen sidaad u jeedo Like tapirs territory. So even you can see right here, like the grass heated already, see? iminka haddaba waxa keliya noo hadhay waa inaynu aragno xayawaanka aynu intan soo raadinaynay Cows, no anything else. waxyaabaan caws ka dhex dhaqaaqaya haddii weynaadaan dabcan waa taybar We're gonna go here around and then we're going that way. We wanna go to the camping over there. waa maxay waxa halkaa saarani kani waa tuke cirka ma aragtaa tukayaal fara badan baa duulduulaya tukayaasha sidaynu la soconno waxay ku soo ururaan meesha ay wax ku baktiyeen sidaa darteed waxbaa meelahan ku dhintay Nearby, it was a very bad sign. haddaba dabcan raadkii taybarka maanu helin At all. I don't think they're here. Do you not think they would be in the center? dhammaanba agagaarkan waxaanu ku eegnay oon halka sare kaga eegnay daroontayadii Charlina sax ayuu ahaa meeshan wax taybarisi may joogin maalintii xigtay haddaba waxay ahayd tii noogu adkayd ilaa imika dabcan waynu soo gaadhnay dhulkii ay deganaayeen ama laga helayay xayawaankan taybarka laakiin halkaa waxaynu ku ogaanay inay macquul aad u tahay in taybaradan aanay waxba ka hadhinba oo halkan aanaanu ka helaynba xayawaan taybara caddaymo fara badan oonu soo arkaynay raja ayayna gelinayeen in xayawaankan aanu arki karno laakiin imika marba marka ka dambaysa waxaa sii badinaysay in aanan marnaba arkayn xayawaankan markan haddaba maadaama cuntadii naga sii dhammaanaysay aan hosidanay waxay u muuqatay in kayntan aanan kusii qaadan karin waqti intan kasii dheer
dheer moralkaygu hoose ayuu u sii dhacayay marba marka ka dambaysa aanu sii aragno amaba aanu ogaano in wax taybariisa aanan la kulmi doonin tanina waxay u muuqatay mar walbaanu si adag iskugu sii dayno inaanu helno taybariiskan inay sii noqonaysa midaan macquul ahayn ilaa ugu dambe inaanu halkan soo gaadhnay. That was until we found this. Where is it? In this room. Yep. This way. Right here. halkaa eega saaxiibayaal waa daanyeerka spidermonkey loo yaqaano ama daanyeerka caarada geedaan dusheena waxaa wada saaran daanyaradan noocan loo yaqaano daanyeerka spidermonkeyga waa mid ka mid ah daanyarada dhifya naadirka ee ku nool kaymahan dabcan inaanu sidan ku aragnaa weli hore umay dhicin noocan daanyeerka laftarkiisu waa mid sii dabargo'aya daanyarada saaxiibayaal waa qaar ka mid ah xayawaanada ugu cajiibsan adduunka oo dhan aad bay wanaagsan lahaydba haddii la rabaysan karo laakiin iminka macquul ma aha daanyaradan haddaba markii aan halkan ku arkay waxaan xaqiiqsaday in arrintani ay tahay arrin cajiiba inkastoo aanu maanta oo dhan soo raadinaynay inaannu helno xayawaanka taybarka oo yaxaasiye fara badan iyo khataro badan aan u soo wajahnay haddana daanyeerkan laftarkiisu ma sahlana inaad aragtaa sii dabargo'aya haddaba markan haddii aanu rabno inaannu soo ogaanno ama aanu helno taybaradan aanu raadinayno kaynta inaannu iska ilaalinno waa inaannu joojinaa oonu kayntan ka mid noqonnaaba ugu horrayna si aanu kayntan uga mid noqonno waa inaannu joojinaa inaannu ka cabsanno xayawaanada kaynta ku nool charli markan waxa uu nooga digayaa khatarta ay leedahay quraanjadan warrior antiska la idhaahdo haddii ay ku qaniinto balse si aanu kayntan ula qabsanno waxaan u baahannahay inaannu isku dayno waxyaabo la yaab leh saaxiibkaiyo anigu markan waxaan ku sharatanay haddii isaga uu iga guulaysto in quraanjadan qofka laga guulaysto lagu dhejin doono. Why did I do this? Don't see. I hate this. You gotta say. sidaad arkaysaan yaxaasban dabada hayaa markan wax macquula kan inuu yahay raadka taybar yar laakiin ma hubo kani waa taybar yar taybarka weyne hooyadu aad buu weyn yahay raadkeedu dabcan waa inaan raad meelahan ka helnaa dabcan rajadeeda hoos umaanu dhigeen marnaba laakiin marba marka ka dambaysa waxaa sii caddaanaysay inaanu ku soo dhowaanana taybariska charli markan waxa uu mar kale dareemay in taybarku ay nagu dhow yihiin balse si kedisa charli tilmaam ayuunu siiyey si aanu meesha uga joogsanno waxbaa qaldanaa markan haddaba waxaanu arkaynaa waa mid ka mid a waxyaabaha ugu khatarsan aad la kulmi karta markaaad kayntan ku sugan tahay waana mid ka mid a daqiiqadii ugu adkaya noloshaydaba hoos fadhiista waa ugaarsato. charli markan waxa uu arkay rag hubsita socod baan meesha ka maqlay indhahayga maan saarin laakiin haddii aad aragto ood face to face raggan isku aragtaan waynoo dhammaato wayna soo weerarayaan waxaynoo fiican bayna inaan ragga wejiyadooda arag oo ugaarsato raggan si aan loo ogaan wejiyadooda qofka arka way u dhammeeyaan haddii aad qori la cabaysanay iyo waxaa maqashaan dib iskaga baxa iminkabaa dib u baxa wax keliyaanu arki karin annagu waxa uu ahaa waxaan meesha fog nooga muuqda charli hore ayuu markan u sii socday si uu si dhow ugu eego inaan iska fadhiyo ayay ahayd laakiin waxaan go'aansaday inaan charli dabagalo charli ma arkaya charli waana weyniba Just gone into a tent. dadkii meeshan ku sugnaa si degdega ayay uga tegeen sida muuqata way ka yaaceen amaba waxaa laga yaabaa inay wax soo ugaarsanayaan waxaa laga yaabaa sababta ay halkan u joogaan intay barisku ay gaarkan ka dhow yihiin laakiin weli inta ay noo jiraan raggani kamaan warahayn aniga ay soo daba socda mar walba aniga uuna soo dabagala markaan idiin sheegay inaad fadhiisataan hoos fadhiista haddii aad xabad maqashaan ha dhaqaaqina halkaa fadhiya intaa kadib charli waxa uu nagu hogaamiyey kaymaha inaanu sii dhex galno halku tegaya talow charli markan waxa uu isku dayayaa inaynu helno dariiqa ugu dhow ee aanu ku tegi karno xarun kale oo ranger stationa charli markan uu naxsan yahay badanaa marka hore uuna la kaftamayey laakiin
serious way imkaarintu gebi ahaanba wuu aamusay waanuna hor socdaa kadibna wax baanu maqalnay raggii hunteriska ahaa ama ugaadhsatadii weyba naga dambeeyeen waxaanay wateen ay ugaadhsatadan waxay adeegsadaan ayda wax lagu ugaadhsado si ay u dabagalaan xayawaanada sii dabargo'aya aydaasi haddii ay raadkayga uriyaanna waxay toosna ugu keeni doonaan nimanka ugaadhistada ah oo noogu iman kara halkan markan waxaanu helnay raadkii xarunta rangerska laakiin aydu wayna urin karaan weli marba marka dambaysana way noo soo dhowaanayeen oo codkooga si dhow ayaan u maqlaynay waxaanan u baahnayn in meel ammaanaan si degdega u tagno laakiin saacad ayay nagu qaadatay si aan u gaadhna meeshaanu soconnay ugu dambayn markan waxaanu soo gaadhnay meeshii rangersku ay deganaayeen si ugu dambayn aanu iskaga waraysanno waxaanaanu soo aragnay amaba khatartaanu la soo kulannay sidaad soo arkayseen xaaladdu way nagu soo xumaatay waxaa laga yaabaa inay 50-50 tahay inaan imika aragno xayawaankii tiibirka ma rumaysan kartaa waxaanu soo aragna waa inaan u sheegnaa nimanka rangerska haa waynu sheegi karnaa rangerska raadadkii ugaadhsatadaynu soo aragnay haddaba waxaa halkan aanu ku soo aragnay waxay noo caddaysay sababta dhabta ah ee taybarska ay hoos ugu sii dhacayaan kadibna waxaanu soo gaadhnay xarunta rangerka ee ku taalla bartamaha markaanu soo gaadhnayna waxaanu bilownay inaannu ka fikirnay inaanaanu arkaynba xayawaankan taybarka maanta ilaa ugu dambayn la soo gaadhay maalintii 7aad charlie markan waxaunu toosiyey saq dhexe maadaama meeshii aanu hurudnay agteeda uu yimidba waxaanu intaasoo dhan raadinaynay waa xayawaankii taybarka xayawaankan taybarka inaad sidan ugu dhawaataa waa wax aad u cajiiba saaxiibyaal markaas sidaad aragtaan waxaynu aragnay mid ka mid ah taybaradii ugu dambeeyey ee adduunka ku sii hadhay si aad aragtaana horteena ayay joogtaa wax ka yar 1,000 taybar ayaa adduunka imka ku sugan wayna sii dabargo'ayaan kanina waa mid ka mid ah dabcan ilaa imika waad ogtihiin sababta ay u sii dabargo'ayaan iyo waxa ku dhacay maadaama hore ayaan u soo aragnay intaasina inay idinku filan tahay ayaan filayaa tanina waa daqiiqada aad u qurux badan oo aynu aragnay xayawaankan aadka u quruxda badan leh aad baan ugu faraxsanahay inaan caawa halkan ku arkay ugu dambaynna saaxiibayaal haddaba waxaan idinka codsanayaa inaad subscribe saartaan channelka sidoo kale like-tana muuqaalka aad saartaan mar kale idinku celinaya saaxiibayaal like-ta saara muuqaalka sidoo kale channelkana subscribe saara insha allahna waynooyo muuqaalka xiga aad baad mahadsantiin